waxaa xaggan xanuunka la qaybsanaya walaashay Fahma Ahmed. waxaan ku leeyahay Fahmo ilaahay la warxaq badan kaaga dhigo. waa ka xumahay in sidaa lagu galo waliba gabdho Soomaaliyeed ay sidaa ku galaan. waa kula dareemayaa maanta murugada iyo xanuunka iyo tiiraayada ku jirtid. waana dareemi karaa because waxaa ahay gabar Soomaaliyeed Soomaaliyana hore u tiri korbiliseed ka bisma dheero. waa dhacdo aad u xanuun badan oo ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kadib markii la garaacay Fahma Fiicane oo ahayd gabar sanadkii hore dhibaato xooggan loo geystay oo muuqaal anshax xumo ah laga duubay waayadii ugu dambeysayna ku nooleed magaalada Nairobi oo xalay in ka badan 7 qofood ay isugu tageen kadibna ay si toos ah u garaaceen xabsiga ayayna u sii taxaabeen. haddaba waxaan eegi doonaa xogtii ugu dambeysay wararka laga helayo magaalada Nairobi iyo Fahma Fiicane oo ku jirta xabsiga iyadoo wejiga oo idin laga bedelay. gabdho badan oo caan ah oo reer Nairobi ayaa afka furtay isla markaana tilmaamay in Nairobi aysan xilligan nolol oolin oo ay tahay in la isaga tago. muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. waxaan rajeynayaa in qaybta commentiga aad ugu duceyso gabadhaas horey loo dhibaateeyay maskaxiyan ahaan sharafteeda meel looga dhacay oo haddana marxalad culus wajahaysa isla markaana iyadoo dhaawacyo waaweyn wejiga ka qabta xabsiga loo taxaabay. sida ay sheegeen dad badan oo ku sugan magaalada Nairobi xalay ayaa bartamaha xaafadda Islii waxaa si weyn loogu garaacay Fahma Fiicane oo ahayd gabar reer Muqdisho TikTok-gana caan ka ahayd oo sanadkii aynu kasoo gudubnay kuwa manaxayaal ay ka duubeen muuqaal anshax xumo ah kadibna ay ku baahiyeen baraha bulshada ay ku wada xiriiraan. Fahma Fiicane ayaa hadda isku dayeysay inay kasoo kabsato muuqaaladaas anshax xumada ah ee laga duubay iyadoo ninkii muuqaalkaasi ka duubay magaalada uu iska galay isla markaana wax tallaabo aan laga qaadin. haddaba xogtu waxay tilmaamaysaa in Fahma Fiicane ay ku goobteen wiilal iyo gabdho reer Nairobi ah lamana yaqaano sababta rasmiga ah ee dilkaasi ka dambeysa. dadka qaar waxay yiraahdeen ma jirin xitaa wax buuq ah oo ka dhaxeeyay maadaama gabadhan waayadii ugu dambeeyay ay ka fariisatay isticmaalka baraha bulshada sida Snapchat-ka iyo TikTok iyo Facebook-ga. Fahma Fiicane ayaa horey u sheegtay inaysan tol lahayn maadaama beesha habargidir ay kasoo jeedana lagu fiirsaday dhibaatooyinka ay wajahayso. hooyadeed ayaa lala xiriiray oo la weydiiyey gabadhaada maxay kuu sheegtay markii ugu dambeysay ma dagaal ayay dad kula jirtay mise waxay ahayd gabar iska degan. waxaana lagu tilmaamay warka hooyada kasoo baxay inuu ahaa in gabadheeda aysan cidna wax u geysan laakiin la shirqoolay oo la garaacay isla markaana ay ka warsugayso inay ogaato cidda falkaas ka dambeysa. waxaana ay sheegtay in qabiilada dadka garaacay ay hadda baadigoobayso si ay u ogaadaan waxa jira. sidoo kale dad reer Nairobi ayaa sheegay in gabadhan iyo dadkii garaacay oo 7 qofood ahaa hal mar booliiska ay isla qabteen kadibna xabsiga la geeyay laakiin kuwii garaacitaanka sameeyay ee gabadha wejiga ka bedelay ayaa iyagu laga soo daayay xabsiga isla markaana xabsiga waxaa lagu reebay Fahma Fiicane oo ah gabar Soomaaliyeed oo xilligan kasoo kabanaysay marxalado adag oo nafsiyan ah oo ay ka qaaday muuqaaladii anshax xumada ahaa ee laga duubay dhowaan. Fahma Fiicane waxaa ka horeeyay dad badan oo rag iyo dumarba leh oo reer Nairobi ah oo la garaacay isla markaana kuwaasi waxay kaga duwan tahay iyagu kuwaasi dad ayay weerar ku qaadayeen oo aflagaado ama wax la mid ah ayay baraha bulshada u marsiinayeen. laakiin Fahma Fiicane oo dad ay is hayaan oo ay is aflagaadeynayaan dagaalna ay isugu hanjabayaan lama arkin. taasi oo shaki culus abuurtay isla markaana wax badan la iska weydiinayo. booliiska Kenya oo wax laga weydiiyay kiiska gabadhan ayaa ka gaabsaday ka hadlideeda waxayna ku gaabsadeen oo kaliya in baaritaan ay ku hayaan gabadha isla markaana wixii baaritaankaas ka soo baxa ay la soo wadaagi doonaan dadka Soomaalida ah. magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxay wajahaysaa xaalad aad u culus. Soomaali badan oo caan ka ah baraha bulshada ayaana u muuqda in xilligan godkooda biyo ay ugu soo galeen iyagoo ka baqdin qaba in la beegsado. horey magaaladaas waxaa loogu garaacay dad TikTok iyo Facebook iyo YouTube-ka caan ka ah isla markaana waxaa dadkaasi markii dambe ay sheegeen in qaab qabiil lagu soo weeraray oo ay hadda kadib isdifaaci doonaan.
Shikibabo ayaa ka mid ah dadkii horey loogu garaacay magaalada Nairobi oo xilligaasi wuxuu ku eedeeyay Daahir Cabdulle Calasow inuu ka dambeeyay falkaasi isla markaana isagoo aflagaadeynaya Daahir Calasow ayaa dhowr jeer la arkay. Moha ayaa sidoo kale lagu garaacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaas oo isaguna la arkay isaga oo muuqaal laga duubayo si arxan darro ahna loo dilayo. Sidoo kale Esther Kurlibaax iyo gabdho kale ayaa halis uga badbaaday falal shirqool ah oo lagu garaaci lahaa. Fartuun Balbalaarka ayaa sidoo kale loo hanjabay oo loo sheegay haddii ay aamusi weyso in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Dadkaas oo idil marka aad eegto waxay xaaladooda kusoo biyashubanaysaa in ay tahay in khatar weyn ay wajahayaan dadka ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Fahma fiicani qabiilkeeda Habargidir weli wax war ah oo ay arrintan ka soo saareen ma jirto, waxaana gabadhan dadku ay isweydiinayaan halkee ayaa laga haystaa cuqubada gabadhan haysata, halkee ayay ka socotaa. Daraad ayaa muuqaal anshax xumo ah laga duubay oo Soomaali oo dhan ay la ooyeen, maantana waa kaa la arkay iyadoo wejiga laga bedelay, xabsi ku yaala Kenyana madaxa loo geliyey. Wixii kusoo kordhaa gabadhan xaaladeeda halkan ayaan kugula wadaagi doonaa, waxaana kaa codsanayaa si sharaf leh inaad u duceyso walaasheen. Waa walaasheen sharaf leh oo shalay lagu xadgudbay, maantana u muuqata in la dulmiyey. Sidoo kale muuqaalka gabar Soomaaliyeed oo magaalada Nairobi ku sugan isla markaana faahfaahin dheeraad ah ka bixisay waxa ay kala socoto kiiskan dilka arxan darrada ah ee loo geystay Fahma fiicani ayaan halkan kugula wadaagaya. La sii wadaag asxaabtaada kale. waxaan xaggan xanuunka la qaybsanayaa walaashay Fahma Axmed. waxaan ku leeyahay Fahmo ilaahay la warxaqdana kaaga dhigo. waa ka xumahay in sidaa lagu galo, weliba gabdho Soomaaliyeed ay sidaa ku galaan. waa kula dareemayaa maanta murugada iyo xanuunka iyo tiiraanyada aad ku jirtid. waana dareemi karaa because waxaa ahay gabar Soomaaliyeed, Soomaaliyana hore u tiri kor biliseedka isma dheero. soo nabarka maanta adig ku gaaray ana waa i gaaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala ku boogadhayo, xabsigana ilaahay ha kaa soo bixiyo. wax kale oo aan ku oran karno ma laha. ilaahay baa kuu qoray, qadar ku qorneed bay ahayd. habeenkaa xab iyo biyo ahayd hooyada caloosheeda aad ku jirtay inay kugu dhacdo in wejiga saa lagaaga galo. soo ilaahay subxaanahu wa tacaala sida ugu dhaqsaha badan ha kuu caafiyo. ilaahay baa awood leh, asaga shala kuu keenay inay sidaan kugu dhacdo, asagaana maaragtay kaa caafin karo. ibni aadan waxba kuma samayn karo. tanna waa qadar kugu dhacday. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu yasiro abaayo. waxaan rajeynayaa inaad usoo duceyn doontiin gabadha walaasheena, videogana sheergaday doontiin si ay uga soo hadlaan gabdho badan oo u muujiyaan dareenkooda iyo sidii ay uga xun yihiin waxa ku dhacay Fahma Axmed. waxaan ku leenahay Soomaali waa hore u tiri derbi Nairobi iyo dad Nairobi midna lama dugaashado. soo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qoray. sorry abaayo, ku xumahay 100 jeer aan ku xumahay, waxba kuuma qaban karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala xabsigana ha kaa soo bixiyo, wejigaagana sidiisii hore aan kugu soo celiyo. waxaan rajeynayaa inaad usoo duceyn doontiin. waxaa la yidhi walaalkaa maalinuu garabkaaga baahan yahay, maalintuu garabkaaga baahan yahayna waa maantoo kale. Fahmo anagay garab nooga baahan tahay, garabkay nooga baahan tahayna waa inaan u duceyno, ilaahay u barino inuu gabadha yartaa miskiinta ah murugada ka dulqaado, xabsigana uu kasoo bixiyo insha Allah biidnillaahi kariim wayna kasoo bixi doontaa.